aad baan u soo dhaweynaynaa shirkan maanta wada tashiga ah aynu fikirayno suuqeennii musiibadu ku dhacday disasterku ka dhacay Wahen waxa weeyaan national issue oo disaster weyn oo inaga culays badan oo waxa dhacay maqaadiir eebe marka dadkii wax ku yeeloobay dhaqaaluhu ku burburay ugu horeyn waxaan ugu ducaynaynaa inuu Ilaahay awil khayr qabo ugu bedelo arsaaqad khayr qabta Ilaahay siiyo qulubtoodana uga reebo dhibaatada dhacday suuqa Wahen waa suuq ku yaala Hargeysa waxa suuq ganacsiyeedkii ugu weynaa Jamhuuriyadda Somaliland waxaan u baahan yahay sida xaqiiqda in cilmi baaris rasmiya aynu sameeyno oo aynu walibana cilmi baaristaas ay ku saleysnaato facts and figures xaqiiqa waxa weeyaan suuqaasi dhowr qaybood oo kala duwan ayaa horta muhiim ah facts and figures keena cilmi baarista aynu ku saleynaynaa qaybaha dhaqaalaha iyo ganacsiga sababta suuq wuxuu ahaa dhaqaale wuxuu suuq ganacsi wuxuu suuq aynu budgetkeena guud ee miisaaniyaddeena qaranka guud wax badan 20% marka qaranka laga hadlayo sida imika cilmi baarista hore ee hordhacay ay sheegayso ka dawlad hoose ahaana 40% hoos u dhac weyn uu ku yimi marka qodobada aynu marka koobaad bal eegno qodobada kale muhiimka ah inoo yaalo waxa weeyaan qaybaha sharciyada iyo shuruucaha dhismaha oo sidii wasiirku sheegayay shuruucihii dhismaha oo loo eego qaybaha qorsheynta iyo nashqadeynta oo architecture urban planning qaybaha caafimaadka iyo nadaafadda laftigeeda aynu xooga saarno inuu eegno qaybaha nabadgelyada iyo safety regulationska aynu eegno qaybaha adeegyada asaasiga sida biyaha iyo korontada dawlad hoose ahaan qaybaha xog badan ayaanu ka haynaa oo inooga diyaarsan maxaa yeelay suuqa waa suuq in badan dawladda hoose ay gacanta ku haysay maamuleysay marka wax kasto looga baahdo dawladda hoose maamul ahaan iyo xog ahaan iyo engineer ahaan iyo team ahaanba waynu diyaarsanahay warbiximaha muhiimka ee dhameystiran ee ku saabsan dhismaha waxa weeyaan laba qaybood mid waa public qaybna waa private sababta dhismayaashu damay wada ahayn public oo inta dawladahan Somaliland ahaan aynu lahayn ay mas'uul uga tahay dawladda hoose waxa weeyaan way ka kooban tahay qaybta private-ka oo inta private-ka badan dhulka marka la eegayo baaxadda oo 6400 meter square 46000 meter square-ka waxa weeyaan waxa badan inta ay leedahay dadka private-ki marka qaybahaas iyo qaybta dawladda ay leedahay tirada ganacsiyada yaryar ganacsiga ee ka jiray suuqa in la helo noocyada ganacsiga ka jiray goobtaas ayaa muhiim ah waxaan soo jeedin lahaa inaynu dhowr qaybood u qaybino oo aynu bal shaqooyinka inoo yaala aynu qaybino goobaha amaba qaybaha ay leedahay dawladdu ee ah public muxuu ay dawladdu ay leedahay ee public wadooyinka iyo meelaha danta guud ee dawladda hoose iyo dawladda dhexe ay mas'uulka ka yihiin goobaha ama qaybaha ay leeyihiin shacabku ee dawladda hoose u registeraysan sababta waxa weeyaan ardayad baynu guriyihii rasmiga ahana hore uga qaadi jirnay faylashoodii baa inoo yaala sababta imika dhibaatada ugu badan aan haystaa waxaan ayaamaan ugu dambeeyay dadkii halka xog badan baa kaga gubatay dadkii meesha businessyada lahaa sababta xogta kaga gubatay waa documentiskii dhammaay haysteen baa qasnadooga ku jiray haday noqoto faylashii guryahooga haday noqoto ani document baasaboorhooda ani document oo dhan baa halka kaga gubtay marka waxyaabo dhaca waxa kamid ah imika culaysan haystaa waxaan kuyu wax loo soo galay qof walba inuu yiraahdo faylkaygi koobigiisi waxa ku dhex dhuumanaya intaas oo jira dad aan haday doonaan ay haystayba oo laba qof oo walaalo wax kala riixanayay ama family dhaxal is haystayba marka waanu joojinay imika in cid loo sameeyo muxuu ahaa document oo loo baaro file waxaanu joojinay ilaa liiska rasmiga ah ee goobaha
dadkii ay wax ku yeeloobeen ee dhaqaalahooga iyo gurihooga ay ku baabeen la helo oo guddida heer qaran iminka liiskii iyo muxuu ahaadee liiskaas si rasmi ah aynu helno welibana liiska aynu xaqiijino maxaa lagu xaqiijinayaa liiska laftigiisa wuxuu u baahan yahay waxyaabaha lagu xaqiijinayo waxaa ka mid ah in dee liisamadoodii hore loo eego ardayadihii iyo documentiskan inoo yaalla la eego cashuurtii iyo liisamadii laga qaaday la eego accountiska ay ku leeyihiin shirkad baananka kala duwan amba zaad ha noqoto amba baanankeena kale Somaliland ha noqoto waxyaabahaas oo dhan waa wax loo noqonayo sidoo kale xogaha aynu hayno waxa kamid ah the national ID card keeni ayaynu haysanaa telefoonada baynu haysanaa marka inaga wax badan cuskanayna ayaynu eegi doonaa waan soo dhaweynaynaa afarta qodob ee maanta laga hadlayo oo special site datadii wax badan baanu ka dawlad hoos ahaan ka haynaa oo inta waanu ka shaqeynaynay iminka waxa socday oo dhamaad ku dhow in clinic-kii phase-kii labaad la dhamaystiro oo hawshaas way socotaa sidoo kale injineerada dawladda hoose waxay sameeyeen iyaga laftigoodu xog iyo data ayay meeshii ka soo ururiyeen oo goobta way nagula sugan yihiin sidoo kale economic datadaas iminkaan tilmaamay si guudiyadana inaynu bal dawlad hoos ahaan xaqiiqdeeda u raadino action itemskeenu qaadi doono insha Allah inaynu ka wada tashano marka anagu shirkani waa shir bilow inoo ah waa shir insha Allah bidnaahi kariim mustaqbalkeena iyo ummadeena guul weyn u soo hoyn doona anigoo ku hadlaya afka golaha deegaanka ee Hargeysa afka maayarada Somaliland waxa weeyaan gacmo wada jir bay wax ku gooyaan si guud baan insha Allah bidnaahi kariim u wada shaqeyn doonaa